waxaan ku suganahay tuulo ka mid ah tuulooyinka hoostaga Garissa County waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo gabar yar oo ayada ay dhashay qisa aad u xanuun badan oo cajiib ah qabsatay gabadhan waxa lagu magacaabaa Iqra ma qasina jirtaa way 10 sano sheekadan waxaad kaga bogan doontiin su'aalaha aan hooyadan weydiin doono hooyo magacaada adoo ku bilaabayso magaca Ceebla Cadow hooyo magaaladan magaceed magaaladan dal helal dhaha waxay hoos tagtaa Madooga Shimiya macallimiin bay hoos tagtaa ha hooyo meeqa canug baad dhashay 10 canug Iqra waad waa meeqa jir 10 jir miya ha ma sha Allah Iqra qisa qabsata saa iga sheekaysaday aad u xanuun badan bal waxa wax yar nooga sheegtaa ayaantii Iqra arinta qabsata say wax u dhaceen maxay raaceen yaa la socday bal hay wiil baa la socday labadooday ahaayeen duhurka markay joogaan baa ariga ka kala go'ay wiilkii baa yar arigaasan soo gadin ariga intuu ku maqnaa waa dabeel dhaxdooda soo gashay dabeel duufaan oo siiga wadato sax marka ariga kalena wuu waaye kii ayada ay la jirtana wuu waaye sax bacdil maqrib buu imaaday wiilkii ariga kala goosanka ahaana maqribtaas uu imaaday marka ayadi waa la waaye hadii la waaye meesha waxa laga birmada oo rax soo jeed casar sida uu didayna ariga raadkiisa noo baxay sheebahan qoryaalo dhan buu gooyay meel la dhaho waa mid Jibriil dusheeda shashami ku joogo oo 8 saacan joogno oo habeenimo baa libaax gale libaax baa raadkiisa yar qaaday uu ka qabsaday ridii bay ku soo noqotay kirkir bay tiri waana 10 jir gabadhi libaax neefka la qabsanaysa markay tiro ayadii ku booday ayadii ku soo booday ridii buu geed isku la dhaxriday marka ridii buu qabsaday laba libaax bay ahaayeen libaaxi kalena ri kale uu qabsaday marka labadii bahal laba dhaxdooda bay soo marto geedka xagga ooga bax way garan waysay labadii libaax laba dhaxdooda soo martay ariga oo dhurwaasay didinay bay dabada ka gaartay ruwaagi bas markuu ariga qabsado wakir bayday ayadana way iska dhax ordisay wada 57 neef buu dilay 57 neef dhurwaagi iyo libaaxi iyo bahaladii ay dileen intaana way dhax ordaysay marka dambe ridi u dambeysay dhagtay qabsatay sax dhagta markay qabsataa tu kala ku soo gashay kalena boodadu qabsaday sax kirkir bay tirwaa qaylisay rihi eedaankooda iyo qaylideeda baara ku soo birmada magaaladii marka ku dhawaatay nasiib wanaag tuulada waxay ku dhowdaa waayama Jibriil korkeeda shishay roobna ma daa xilliga waana habeen waana mugdi la jooga 8 saac oo habeenimo sax marka kabta jiifka waayama Jibriil baa kabta kaga orday kabta buu ka soo waday 3 riyaado dhaawac 2 riyaado dhaawac ay ayadi Iqraan weydiin eegadan ahaye maxaad kala ku darartay waxaan ku dararabay halka markaan ugu tagnay ayadi ilaa ay ka gaaraysay 6 saac oo 7 saac oo dharaarnimo maalinkii dambe hadal waa laga waayay way soo garaysay yaani way si kale maskaxdeeda noqotay hadii ilmo yar oo 10 sano jiro oo intaasoo bahal intaasoo saacadood dhex socday waa dhib Iqra maxaa xasuusta bahalka xasuusta noocu aha ma xasuusan kartaa haye ما أركيس بدأنتي مسجوع حيس ما مغلس وأركيس هي مركب ما سفع عنه هذا محا مركب محات كحسستها بل وإحنا وجشك شيء كذا أنت أسعت مركب هذه عد أسعت مي اسمه ذي مسنا دون سنتوا أوقات هيه عندنا وسعتها مو هيه هذه سكول ولا مرق هاي سكول كده جت واحد هذا وسكول إني أسكب بيجينا الدولة أول ديوان كسنين كان إقرأي وحكاية إقرأميها ما شاء الله قبل جيسيد واي إن شاء الله وهدي وحي وقبان كرنا وانجرسيننا ayadana niyad u daj hadda maxaa xanuun ku aragtay markii inta arintan dhacday wadnaha ka xanuunsan wadnaha wax saa igu taagan bay dhii laba maalintay joogto madaxay wadnaha laga qaban marka maalinkii waxa arinta ay dhacday kadib baa waxa ku aragteen inta arinta dhacday ka dambe way aad ba u mahadsantahay insha Allah qofkii bini'aadan hadii arintaas bini'aadan waxa uga qayb qaadan kara waan gaarsiinayna dadweynaha insha Allah Facebook page Abwaan Cabdirasaaq ka baxay thank you very much for the watch